مسؤوليinta Soomaaliyeed oo lagu eedeynayo in ay arintan geysteen ama xilha hadayaan ama yeesan haynin waxaan u maleynayaa doodii maanta ee qareenadeena inay si cad u qeexeen ujeedadii iyo intentionkii laga lahaa waxa kaliya oo lagu eedeynayo waxa waaye inay heshiiskan is afgaradka ay saxiixeen anigu shakhsiyan asxiraali ahaan as mas'uuliyad ahaan aniga oo aan munaafaqadaynin aniga oo aan cidna aan hogaamisanin waxaan aaminsanahay anigu shakhsiyan in ay mudan yihiin in lagu siiyo credit in lagu siiyo ka hadlidii ay ka hadleen badda Soomaaliyeed inay ka hadlaan oo doodaas ay keenaan aad iyo aad baan credit ugu siinaya MOU-ga ay saxiixeen oo lagu eedeynayaan ujeedadiisa maanta la qeexay waa arkayseen qareenadu inay si cad u qeexeen ujeedadiisu ma ahayn inay dad Soomaali lagu bixinaay ma ahayn in dad Soomaali lagu gadanay mana ahayn sida dadweynuhu u dhigahayaan ama shacabku ay u dhigahayaan meelaha qaar in heshiis gaar ah lagu galay ujeedadiisu waxay ahayd oo kaliya labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo ay khasab ahayd in ay gudbiyaan warbixintooda khusaysa continental shelf-ga ama qorshe qaaradeedka labada wadan si ay u gudbistaan in aan wadanka kale uusan horistaag ku sameeynin ujeedadu saasay ahayd hadii Kenya waa laga rabay inay geeso Soomaaliya waa laga rabay inay geeso hadaan geyn weyno continental shelf-gana dhasheegay sidiisa meesha ka bixi lahayd Kenya hadii geyn weyso continental shelf-ga meesha ka bixi lahayd marka si ay u geystaan labada wadanba ay heshiiskan waxay u galeen in qolo walba ay raali ka tahay inay geysato warbixinteeda ee ma khusaynin ba haba yaraatee wax borderka iyo xadka aan ka heshiin iyo xadka badda Soomaaliyeed qaata intaas iyo sida aan ka dhigno iyo sida aan u xariiqin haba yaraatee ma aanay gelin kuma aanay jirin doodoodu tensionkooduna ma ahayn runtii dawladii ka caawinaysay labada wadanbana waxay ahayd dawladda Norway ayadana ma ahayn tensionkoodu noocaas iyo ma ahayn fikirkooda iyo ma ahayn waxay ahayd bacdana ay ka caawinaysay labada wadanba in labada wadanba si khiyaar ay u geystaan oo ay u geystaan meeshaas ay ahayd marka waxa kale oo inta ka soo hara waxa waaye waxa naga aanan ogeyn hadii qof calooshiisa wax kale ku jiray ama intention kale ku jiray ama wax kale u qarsoonayeen taas Ilaahay un baa og laakiin waxa muuqda anaga aan hayna waa MOU-gan badna lagu bixinin badna lagu saxiixanin dood wuu keenay ficlan oo shalay oo dhan wixii dood Kenya waxay ku salaysaneed MOU si rabaan ha u fasirtaan laakiin haba yaraatee ma ahayn mid ujeedadiisu laga lahaa ay ahayd in bad Soomaaliyeed lagu bixiyo mana ahayn mid ujeedadiisu laga lahaa ay ahayd in xuduud